بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا يردك بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلام يا أمة الصوماليات ميل كستاي جوجتو وعن كل سلام يا سلامة إسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعد وعن سلام يا أمة الصومالي لان ميل كستاي جوجتو وعن كل سلام يا سلامة إسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت شركة نشريد وحكوا سابسية هي qodobo kooban oo aan inoo kala qaadqaadi doono insha Allah bismillahi kariim oo aan ugu horeysiinayo inka la yiraahdo ina kaahin iyo ninka la yana cali koore waxaynu ognahay labada ninba inay bari ka soo jeedaan labadaas ninna inuu yahay nin habar jecel ah ninna inuu yahay nin dhul bahanta labadii nin intay shir jarayd qabteen bay waxa noo liistaysan 40 nin oo ah xamar lacag ka qaata waxay shacabka Soomaaliland maanta u cadeynaya wax lacag ka qaatay inay iyaga yihiin iyo maamulka ina bixi waxa cadeyn idinku filan maalintay xashka tageen ina cali koore iyo ina kaahin intuba iyo ina bixinay wada socdeen in lagu macsuumay hudheelka Soomaalida joogtay oo wasiirka warfaafinta iyo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ay la sawiraayeen gawadhida lagu qaadaynahay gawadhida safaaradda Soomaaliya habeen iyo maalin ina kaahinayna bixinaanay ka dhigin telefoonka farmaajiya khayre waxaan u cadeynayaa hadii cidi ku lug leedahay koonfur oo lacag ka qaadato haday tahay nooc kastaba inay iyaga yihiin waxaan cadeynayaa xusbigii kulmiye la oran jiray inay kaga dhawaaqeen xusbiga la yaahimilo ee magaalada Muqdisho waxba ina bixi iyo ina kaahin iyo ina cali kooro ha ku wareegaalaysanina shacabkan beenta 30 sanadood loo sheegay wax kastaba inay koonfur inoo soo maraan oo ku cuntaan Hargeysa way tusaale qura waxa idinku filan inantii yareeyde uu dhalay Saleebaan Gaal waxbarashada kubcinta waxbarashada gobolada waatii xamar ka soo qaaday ugu keentay Hargeysa idinku keentay wax gobolada waxbarashada loo kubciyay ma aragtay waa ma yowi beenta iyo balaayada iyo waxana lahum baaleynaysan iska daay ina kaahina waxaanu sheegaya ilaahay wuxuu kula culaysiiyay dhulbaantii habar yoonis oo aadad isku xigtaan xaqana waxa ka xigta gowla laale qarar xaqana booda dheera ka xigta waa habar yoonis iyo dhulbaanti qararo 9kii nabadaan kula xidhanay dhulbaanti waadugid annaga iyo habar yoonis ee halkaan nu geelo isku kandaaqo xeerarkayagii ma jabin kartid waxaan kaaga digayaa fidmadan aad ku wada habar jeclo wallahi ma soconayso oo billahi ma soconayso gundaheena ka qarxisa nin loo hanjabana ma yihi anigu waad garanaysaa aniga waad i garanaysaa wallahi billahi tallahi yiroowa iyo baskii baan ka sheekeynaya dherag doon ee aad assassination ku dhigteen guriyaheena ka dhacay doonta taasi waa qodobka labaad wuxuu yahay nimankan intay ka yimaadeen tabca yiri wadadii tabcaan sameynayna maantana intay Hargeysa isugu yimaadeen habar yoonis kala jabinayna waxaanu sheegayaa ka fadhiisto fidmada reerkan kala fadhiisto oo madaxtooyadana u kala dhuumanaysan joojiye iyo fidmadan ku wadaan ma tabcaa ka tiraadeen tabcaan u dhisayna oo waa caynkan maantana waxa leedin burcay iyo ood weynay iyo baan isku xidhaynaa Hargeysa bal oxygen u keena ood weynay 10 milyan ee beeraha loogu ballan qaaday u keena burcana iskuulkeedii Germany iyo birishadeedii iyo iskuulkeedii khayriyada nooga sheekeeyay taasina waa taa waxaan kala oo idin sheegayaa ina ka yara macdanta iyo tamarta ee isna soo yara baxbaxayo faqaayub ciidan baanu gelin wax waliba way iga xaraan cidii isugu tagta meedkiina laga guraya runta wax idin sheegaa weydeen taasina waa taa ta kale reer sanaag waxaan leeyahay waxa lagu soo maqayahay buurihiini idinkuna ka taxadara ta saddexaad beelaha walaalaha ay warsangeli iyo galweynow inta ilaahay ka yaabtaan suldaanka guud ee warsangeli waxaan leeyahay iyo salaadiinta galweyn joojiya xabadan ee wax aad yeeshaana ma jirto yaan maamulada Soomaaliland iyo Puntland soo dhexgelin salaadiin ha dhamayso sheekada nimankani gacan saddexaad haday soo gasho fidmadii ceelaf weyn oo kala dhacaysa reer ceelaf weyn waxaan leeyahay ballantii waa Brussels aynu ku ballanay masaajidka in halkiisii laga dhiso waydinkii igu ballan qaaday in masaajidka halkiisii marka dhisayna reer saraagow masaajidkaas aan dhistaan mooyaan in dagaal idinka joogsado ilaahay bay idin haysta beydkii ilaahay baa marisaan cagaf ilaahay bay idin haysta hal lagu soo celiyo dogoble masaajidkiisii
dadkii meesha cagafcagafyada la marinaya lagu soo celiyo dad islaama haddaad tihiin haddii kale heshiiska wax ka jirayaa ma jiraan haddaan idiin sheegaya ilaahay baa la dagaalanteen ilaahay kii idin abuurtay taasina waa taa waxaan ku soo gebagabaynayaa waxaan daawaday midiya ka arkay ninkan la yidhahda riyaraac oo farmaajo dacalka haysto oo la ololeynaya maantana waxaa laleeyahay guddoomiyaha kimisharkuu noqonaya markaa ina biixiyo madiga ku socda xamar oo xamar lacag ka qaata oo xusbiya u dirtay oo raggii ka ololeynayey ee habar yoonis ku ololeynayay nacaybkeeda maantana le guddoomiyaanha afartaa munaafiq haddaanu nahay habar jeclo nama matelaan haddaan idiin sheegaya maxamuud xaashi ninka lagu yidhaahdo boqor buur madow ninka lagu yidhaahdo ina kaahin ninka lagu yidhahdo saleebaangaal iyo guruubyada ay wataan ma matelaan habar jeclo intaa waa ka weynta kaaga daranta ina kaahin muuse abukor iyo maxamed abukor buu kala qaybqaybinaya